dagaalkii Qaadisiya dagaal ay ciidamadii muslimiinta ay wacdara ka dhigeen iyaga oo laga tiray iyo saanad badnaa una ahaa tallaabo muhiim ah oo ay muslimiinta hore u qaadeen si ay u fuliyaan dardaarankii nabigeena sallallahu alayhi wasallam ee ahaa in islaamka lagu faafiyo adduunka daafihiisa oo dhan. dagaal ilaa maanta taktikooyinkii la adeegsaday lagu dhigo kuliyadaha ciidanka. warbixinteena maanta waxaan ku eegi doonaa dagaalkii Qaadisiya. xilligii khilaafadii Abubakar ibn Sadiq Allah ka raali noqday waxaa erga loo kala diray hogaankii boqortooyadii Faris, laakiin ergooyinkan ayaa kala soo kulmi jiray wajigabax iyo jeestees madaxdii boqortooyadaas, waxayna ugu goodin jireen in ay la dagaalamayaan. waxaaba jiray dagaallo xilligaas ay wada galeen saxaabadii nebiga iyo boqortooyadii Faris. dagaaladaas oo looga qabsaday boqortooyadii Faris dhulal aad u badan oo ka mid ah dalka Ciraaq. haddana sidaas oo ay tahay waxaa weli ay ahayd Ciraaq mid hoos tagta xukunka boqortooyadii Faris. kadib markii uu geeriyooday Abubakar waxaa khilaafada la wareegay Umar ibn Khattab Allah ka raali noqday. markuu khilaafada la wareegayba wuxuu bilaabay inuu si dhamaystiro loolankii ay muslimiinta ugu jireen inay furtaan dhulka Ciraaq. wuxuu diyaariyay ciidan wuxuuna uga dhigay hogaamiye saxaabigii la oran jiray Abu Ubayda ibn Mas'ud as-Saqafi. Abu Ubayda ayaa awood u yeeshay inuu 3 dagaal kaga awood roonaado kana adkaado ciidamadii Faris, laakiin nasiib darro dagaalkii xigay ayaa laga adkaaday, waxaana dagaalkaas ku shahiiday kala badh ciidamadii muslimiinta una ka mid ahaa hogaamiyahoodii Abu Ubayda ibn Mas'ud as-Saqafi. dhinaca kale xilligaas boqortooyadii Faris waxay la daaladhacaysa kala qaybsanaan gudahooda ah, waxayna u kala jabnaayeen maamullo isdiidan. laakiin waxay ogaadeen in si ay muslimiinta isaga dhiciyaan ugana adkaadaan ay muhiim tahay inay hogaamiye midaysan ay yeeshaan, waxayna u doorteen inuu noqdo hogaamiye nin la odhan jiray Yasjar, iyaga oo ka dhigay boqorka boqortooyada Faris. ninkan ayaa awood u yeeshay inuu dib u mideeyo Faris, kadibna wuxuu isku keenay ciidan aad u tiro badan oo qiyaas ahaan u dhow 120,000 oo askari si uu ula dagaalamo muslimiinta, wuxuuna hogaamiye uga dhigay hogaamiye la odhan jiray Rustam Furuqsada. marka laga yimaado in ciidankan uu ka koobnaa 120,000 oo askari, haddana waxa uu helinayay 30 maroodi oo iyagana dagaalka dhinaca uga jiray. inaad maroodi ku dagaal gashid waxay xilligaas ka dhignayd adiga oo dabaabado iyo beebayaal wato oo kale. markii uu soo gaaray muslimiinta warka sheegaya in Farisiyiintu ay diyaarsadeen ciidan kuna soo wajahan yihiin, waxaa shiray hogaankii muslimiinta oo uu hogaaminayo Umar ibn Khattab Allah ka raali noqday. kadib waxay diyaariyeen 30,000 oo askari, wuxuuna Umar hogaamiye uga dhigay ciidanka Sa'ad ibn Abi Waqqas. kadibna waxaa dhaqaaqay ciidankii muslimiinta iyagoo u jihaystay dhanka Ciraaq oo ka xigay ciidankii Faris, waxayna ku kulmeen dhulka loo yaqaano Al-Qaadisiya. Sa'ad Abi Waqqas ayaa u doortay dhulkan istiraatiijiyad dagaal ahaan. waa mid haddii laga adkaado ciidamada muslimiinta waxay helayaan dhul saxaro ah oo ay dib u gurasho ka samayn karaan. haddii ay adkaadaan ciidamada muslimiintu waxaa ka dambeeya ciidamada Faris wabigii Furaad oo ma helayaan meel ay u cararaan. kadib markii ay ciidamada kala degeen fariimahoodii dagaal waxaa erga cusub loo diray Yasjar boqorkii Faris. ergadan ayaa u soo bandhigay inuu 3 kala doorto: islaamid, dagaal iyo inuu bixiyo jizyo. maxaa yeelay qaacidooyinka dagaal ee islaamku wuxuu qabaa inaysan ciidamada islaamku qaadin dagaal iyagoo aan u bandhigin ciidamada ay wada dagaalamayaan. Yasjar wuxuu doortay dagaal, waxaana halkaas ku soo idlaaday marxaladii wada hadalka, waxaana loo gudbay in la dagaalamo. labadii ciidan ayaa isku soo diyaariyay gelida dagaal lagu tiriyo inuu ahaa dagaaladii ugu adkaa uguna arxanka darnaa taariikhda. 120,000 oo askari oo ku gaashaaman 30 maroodiyaal oo la dagaalamay 30,000 oo askari oo ku hubaysan fardo oo kaliya. kadib markay labada ciidan soo gaareen goobtii dagaalka, ciidan walibana uu degay furintiisii dagaal, wuxuu bilaabay Sa'ad ibn Abi Waqqas inuu khudbad u jeediyo ciidamadii muslimiinta. kadib khudbadii Sa'ad waxaa dhacay arrin filan waa ku noqotay ciidamadii muslimiinta. waxaa si kadis u xanuunsaday hogaamiyaha ciidanka Sa'ad ibn Abi Waqqas
waxaa ku dhacay xanuun ka haleelay dhabarka kaas oo u diiday inuu fariistay inuu istaagaba. arrintan ayaa hoos u dhigtay mooraalkii ciidamada muslimiinta kuna noqotay filanwaa. Sacad ibnu Abi Waqaas ayaa go'aansaday inuu ka maamulo ciidanka qalcad u dhoweyd goobta dagaalka, isaga oo ka hagayay dusha sare ee qalcadaasi. wuxuuna hogaanka ciidanka ku wareejiyey Khalid ibnu Carfata, wuxuuna ciidanka ku wargeliyey in tilmaanta bilowga dagaalka ay noqonayso 4 takbiirood. 2 takbiirood oo hore wuxuu amray inay diyaar garoobaan seefahoodana kor u taagaan, halka takbiirta saddexaad marka ay maqlaan in 4 askari oo ka mid ah ciidamada muslimiinta oo kala ahaa Rabiica bin Cusmaan, Khalid bin Cabdallah, Cumar bin Sacad, Caasim al-Tamiimi inay u dhacaan 4 ka mid ah ciidamada Faaris. 4tii saxaabi ayaa awood u yeeshay inay dilaan 3 ka mid ah raggii ay isku dhaceen, halka kii afraadna isagoo dhaawaca u cararay halka safafka ciidamada Faaris. Rustum Faraqsaada, hogaamiyaha ciidamada Faaris, ayaa amray ciidamada midigta iyo bidixda inay bilaabaan dagaalka duulaanna ku qaadaan midigtii ciidamadii muslimiinta. markaan leenahay midig, xilligaas waxay ciidamada u kala qaybsanaayeen 4 qaybood: ciidamada midigta, ciidamada bidixda, ciidamada dhexe iyo ciidamada gadaal. ciidamada Faarisiyiinta tiro badnaan waxaa u dheeraa maroodiyaal cagta sii marinayo wax walbo ay ishoodu qabato, iyo qaansooyin iyo leebab roob looga dhigay ciidamadii muslimiinta. maroodiyada marka ay arkaan fardaha muuqooda aadka u weyn iyo dhawaqooda argagaxa badan, waxay ahaayeen kuwa dib u carara cabsi iyo argagax daraaddeed. waxayna isku dayeen ciidamadii kale ee muslimiinta inay garab siiyaan ciidamadii midigta ee weerarka lagu soo qaaday, taas oo ka dhigtay Rustum hogaamiyihii ciidanka Faaris mid amra ciidanka intiisa kale inay dagaalka galaan. waxa uu dagaalka socdaba lagana awood roon yahay ciidamada muslimiinta. Sacad Abi Waqaas ayaa u yeeray Caasim bin Cumar oo ahaa hogaamiyaha ciidanka midigta ee islaamka si uu u daciifiyo hubkii ugu adkaa ee uu adeegsanayay dagaalka oo ahaa maroodiyada. Caasim ayaa diyaariyey koox ka mid ah qabiilkii uu ka soo jeeday ee la odhan jiray Tamiim, wuxuuna ahaa yoolka kooxdan inay jaraan xargaha ku xidhan sanduuqyada saaran maroodiyada korkooda oo ah meesha ay saaran yihiin askartii hagaysay maroodiga. markii ay jaraan xargaha, waxay bilaabeen maroodiyadii in la xakameyn kari waayo oo ay sii jeedaan ciidamadii watay ee Faarisiyiinta. arrintan oo ka caawisay ciidamadii muslimiinta inuu ka yaraado culayskii dagaalka, waxaana halkaas ku soo idlaaday maalintii koowaad ee dagaalka. maalinkii labaad ee dagaalka, maalintan ayaa loogu magac daray maalintii Aqwaad. waxaa ku soo biiray ciidanka muslimiinta gurmad hor leh oo ka yimid dhinaca Shaam, kana kooban 6,000 oo askari. ciidanka maalinkan yimid ayaa ahaa 1,000 askari oo ka mid ah ciidanka, kuwaas oo iska soo hormariyey saxaabigii la odhan jiray Qacqaac si uu shaki ugu beero ciidamadii Faaris. wuxuuna u kala qaybiyey ciidanka 10 qaybood, isaga oo amray inay qayb walba si gooniha ugu soo biirto dagaalka, si loo moodo ciidamo badan oo gurmad ah oo ku soo biiray ciidanka muslimiinta. una jawaab moraalkii ciidamadii Faarisiyiinta soo gelida iyo kusoo biirida uu kusoo biiray Qacqaac. dagaalka waxay kor u qaaday macnawiyaadkii ciidanka muslimiinta, mana ahan ciidamada badan ee uu hogaaminayay Qacqaac oo kaliya, balse waxaa sii dhiirigeliyey ciidanka muslimiinta kusoo biirida kusoo biiray Qacqaac dagaalka oo ahaa hogaamiye xeelad iyo caqliba u saaxiib ah. waxauna ahaa mid ka mid ah dagaalyahanadii ugu dagaalyahansanaa qabiilkii Tamiim. sidoo kale waa saxaabigii waa Abubakar Sidiiq Allah ka raali noqday oo yiri lagama adkaado ciidan uu ku jiro Qacqaac, codkiisuna marka lagu jiro dagaalka waxa uu ka awood badan yahay 1,000 dagaalyahan. markii uu kusoo biiray Qacqaac ciidanka, waxa uu markiiba aaday furinta hore ee dagaalka, wuxuuna ku yiri ciidamadii Faarisiyiinta oo markii horeba la amakaagsanaa oo la shoogsanaa gurmadkan cusub ee soo gaaray ciidankii muslimiinta isoo saar kiina ugu awooda badan. waxaan u soo baxay mid ka mid ah hogaamiyaasha ciidanka Faaris, wayna dagaalameen ilaa uu dilay Qacqaac hogaamiyahaasi. kadib waxa uu mar kale ku dhawaaqay yaa ii soo baxaya oo iska keedhicinaya. waxa uu soo baxay marka nin lagu magacaabo Fisraan oo ahaa hogaamiyaha ciidanka dambe ee Faarisiyiinta. isagana mar kale Qacqaac waa uu ka awood roonaaday oo waa uu dilay. waxa uuna mar saddexaad ku celiyey yaa ii soo baxaya. laakiin ciidamadii Faaris waxay noqdeen kuwo shoogsan oo argagax ku dhacay, waxaana bilowday dagaal cusub. bilowgiisii waxaa ku awood roonaaday ciidamadii muslimiinta. waxaa caawisay xeeladuu sameeyey Qacqaac. waxa uu geliyey dhammaan fardihii ay ku dagaalamayeen ciidamadii muslimiinta wajigashiyo baqdin leh, taas oo ka dhigtay fardihii ay wateen ciidamadii Faaris kuwa markay arkaan bakadida oo ka carara. waxa uu dagaalka socdaba waxaa la gaadhay habeen
waxaana soo ilaatay maalintii labaad ee dagaalka waxaana ku gacan sarreeyay dagaalka maalintan ciidamadii muslimiinta. maalinkii saddexaad waxa uu sameeyey qacqaac isla xeladii maalinkii hore oo kale. habeennimadii waxa uu koox ka mid a ciidamadii muslimiinta si qarsoodi ah oo aysan dareemin ciidamadii kale ee muslimiinta uga saaray gadaashooda, kuna amray inta ay ciidanka ka baxaan subaxnimada horena ay kusoo biiraan si ay xataa dhiirigelin ugu noqoto ciidamadii muslimiinta, una moodaan in gurmad cusub oo horle uu kusoo biiray, sidoo kalena uu mooraalka uga jabo ciidamadii farisiyiinta oo markii horeba la daaladhacayay guuldaradii xanuunka badnayd ay habeennimadaasi la hoydeen. maalintaasi waxaa u harsanaa ciidamadii farisiyiinta dhowr maroodiyaal oo intii kale waxa ay noqdeen kuwo la dilay iyo kuwo baxsad ah. maroodiyadan hadhay waxaa ugu awood badnaa maroodi cad oo aad u weynaa. si loo dilo maroodigan oo ahaa lafdhabarta ciidamadii farisiyiinta, waxa uu hogaamiyihii ciidamada muslimiinta Sacad bin Abi Waqaas u xil saaray Qacqaac iyo Caasim bin Cumar, allah ka raali noqdee. kadib Caasim iyo Qacqaac oo ay heliyaan tiro ka mid a ciidamadii muslimiinta ayaa u jihaystay dhankii maroodiga. waxay bilaabeen inay ku wareegaan hareerihiisa si ay jihada uga lumiyaan. kadib Caasim iyo Qacqaac ayaa u baxay korkiisa, waxayna warama ka geliyeen labadiisii indhood. dhawaaqay maroodiga markii uu sii dhacayay ayaa ka dhigay maroodiyadii kale kuwa carara oo cagta sii mariya qof walba oo hortooda marayay, waxaana si gebi ahaanba gacanta uga baxay ciidamadii Faris hubkii ay ku dagaalamayeen ee ahaa maroodiyada. wuxuuna ahaa dagaalka maalintaas mid socda 24 saac oo aysan labada ciidan kala nasan. waxaana bilowday maalintii afraad ee dagaalka. labada dhinacba fursad uma helin nasasho, waxayna ahaayeen kuwa 24 saac oo xidhiidh ah dagaalamayay. Qacqaac ayaa sii dejiyey habeennimadii qorshe lagu dilayo Rustum, taliyihii ciidanka Faris, maxaa yeelay haddii la dilo taliyaha ciidanka wata waxay ka dhigan tahay in laga awood roonaaday oo ma helayaan ciidanka cid kale hagta. wuxuuna diyaariyey Qacqaac guuto ka kooban 3,000 oo askari, hadafkooda iyo yoolkooduna uu yahay in ay sii jeedhaan dhammaan difaacyadii ciidamadii Faris oo aysanna joogsan ilaa ay ka gaadhayaan teendhadii uu ku sugnaa Rustum. ciidanka intiisa kalena waxaa loo xilsaaray inay ka mashquuliyaan ciidamadii midigta iyo bidixda ku kala sugan si aan loo haraarin 3,000 ama aan dhexda loo gashan. markuu arkay Rustum fardahan iyo ciidamadan aan istaagayn ee kusoo wajahan teendhadiisa, wuxuu bilaabay inuu u cararo dhinaca webiga, laakiin waxaa milicsaday oo meel dheer ka arkay saxaabigii la odhan jiray Hilaal bin Calqama. kadibna inta ka daba tegay ayuu dilay Rustum. markii uu soo gaaray ciidamadii Faris, warka sheegaya in hogaamiyahoodii la dilay iyo hogaamiyaashii kale waxay garwaaqsadeen in laga guulaystay. kadibna waxay bilaabeen inay u cararaan dhanka webiga, laakiin kuma aysan guulaysan inay baxsadaan. waxayna ciidamadii muslimiinta ka dileen kumanaan, halka inta kalena ay qafaasheen. waxaana sidaas kusoo idlaaday mid ka mid a dagaaladii ugu adkaa ee ay galaan ciidamadii muslimiinta, iyaga oo ka soo hooyey guul aan marnaba ka goyn safxadaha taariikhda. dagaalkaasi waxa uga shahiiday ciidamadii muslimiinta 8,500 oo askari, halka ay gaalada uga dhinteen 40,000 oo askari. wuxuuna ahaa dagaalkani dagaaladii bilowga u ahaa inay burburto boqortooyadii Faris oo ahayd boqortooyadii labaad ee ugu awoodda badnayd adduunka xilligaasi marka laga yimaado boqortooyadii Rom. sidoo kalena waxaa dagaalka lagu furtay dhulka Ciraaq. daawadayaal, waxaa warbixintan inoogu xigi doontaa warbixin kale oo aan ku milicsan doono dagaalkii Yamruuk oo ahaa dagaal ka mid a dagaaladii ugu yaabka badnaa ee ay muslimiinta galeen. waxa uu ahaa dagaal ay 30,000 oo askari u babacdhigeen 220,000 oo askari. daawadayaal, warbixintan iyo warbixino kale oo xiiso badan oo aan dib ugu milicsanayno halgankii dheeraa ee ay muslimiinta u soo galeen sidii ay dunida oo dhan u gaarsiin lahaayeen diinta Islaamka